waxaana wanaagsan dhamaantii masaaxiibayaal ku soo dhawaada barnaamijka wararkii ugu dambeeyay ee Soomaaliya qodobada aanu xilligan idin haynana waxa ugu waaweyn wararkii ugu dambeeyay madaxweynaha maamulka Puntland Saciid Cabdullaahi Dani oo gaaray guul weyn oo kale oo lama filaana kadib markii uu ku guuleystay in uu si buuxda gacanta ugu dhigo ciidamadii danab ee ku sugnaa magaalada Garowe haddaba muxuu yahay heshiiska culus ee dhexmaray General Jimcaale Takar iyo sidoo kale madaxweynaha Puntland Saciid Dani arintani sidee ayay u aragtaa dawladda federaalka Soomaaliya waxaanu idin soo gudbin doonaa warbixinadii ugu dambeeyay Puntland oo ku guda jirta diyaar garow xooggan oo isaga difaacayso faragelin kaga timaada dawladda federaalka Soomaaliya qodobada kale waxa kamid ah madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo fariin kulul oo la yaab lahayd u diray cabsida xooggan ee Saciid Cabdullaahi Dani ka haysata weeraro kaga imaan kara dhinaca dawladda federaalka Soomaaliya haddaba maxay ahayd fariinta madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud oo u diray Saciid Dani waxaanu idin soo gudbin doonaa warbixin umuurtaasi ku saabsan qodobada kale ee barnaamijka aanu idinku soo gudbin doono saaxiibayaal haddii eebaweyne laga helo waxaa ka mid ah madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud oo markaasi ku guda jira diyaar garowgiisii ugu dambeeyay ee uu ku tagayo magaalada Gaalkacyo iyadoo ay soo tarayaan macluumaadyada iyo digniinaha ku saabsan in madaxweynaha halkaasi uusan tagi karin haddaba Puntland fariin noocee ah ayay soo dirtay maanta warbixin ayaan sidoo kale idinkaga haynaa iyo qodobadeena kale waxaa ku jiri doona imtixaanka shahaadiga fasalka 12aad ee dugsiyada sare ee dalka oo maanta lagu dhawaaqay iyada oo arday markaasi gabdho u badan ay galeen kaalmaha ugu horeeya ee markaasi waxbarashada imtixaanaadkii la qaaday qodobadaasi iyo kuwa kale oo ay kamid yihiin xaaladii ugu dambeeyay ee gobolka Gedo ayaanu ku soo qaadan doonaa barnaamijkeena insha Allah madaxweynaha maamulka Puntland Saciid Cabdullaahi Dani ayaa waxa uu gaaray guul kale oo lama filaan ah oo ku saabsan xaaladihii muddooyinkii la soo dhaafay ka taagnaa deegaanada maamulkiisa warbixinada laga helayo magaalada Garowe ayaa waxa ay sheegayaan in Saciid Cabdullaahi Dani hogaamiyaha maamulka Puntland uu markaasi ku guuleystay in uu la wareego ciidamadii danab ee ku sugnaa magaalada Garowe isla markaasina ahaa ciidamo aad u fara badan haystayna hub aad u culus kuwaasi oo iyagu uu hogaaminayay generaalka lagu magacaabo Jimcaale Takar ninkan la yiraahdo Takar oo muddooyinkii dambe si dhow ula shaqeynayay dawladda federaalka gaar ahaan madaxda sare magaalada Muqdisho yimid lana kulmay madaxweyne Xasan Sheekh iyo ra'iisul wasaare Xamse ayaa hadda waxa uu markaasi door biday in uu ciidankiisa ku biiriyo ciidamada Puntland arintani ayaa waxa si weyn uga shaqeeyay madaxweynihii hore ee Puntland ee Farole kaasi oo qayb weyn ka qaatay sidii xiisadani loo damin lahaa maadaama Jimcaale Takar iyo Farole ay jufo hoose markaasi yihiin Saciid Dani ayaa arintani waxa uu arkaa guul weyn oo markaasi u soo hoyatay maamulkiisa iyo dharbaaxo uu ku dhuftay dawladda federaalka Soomaaliya madaxdeeda ciidamadan ayaa waxay ahaayeen ciidamo aad u fara badan isla markaana haystay hub culus waxaana ay ka mushaar qaadanayeen ama ay hoos tagayeen muddooyinkii dambe dawladda federaalka ah ee Soomaaliya balse hadda Saciid Cabdullaahi Dani ayay gacanta u galeen heshiisyo ayaa markaasi la kala saxiixday oo la kala qortay heshiisyadaasi oo ku saabsan in ciidankani ay heli doonaan xuquuqaad iyo waliba sidoo kale mushaharaad rasmi ah oo ay ka heli doonaan Puntland ciidamada inta badan ee Puntland ee markaasi ka baxay ee dawladda federaalka la shaqeynayay waayihii dambe ayaa waxay ahaayeen kuwo markaasi cabashooyin ka muujinayay dhanka mushaharaadka iyaga oo sheegayay in Puntland aysan awoodin in dhaqaalaha ay qaadanayaan ama markaasi mushaharaadkooda ay markaasi bixiso si kastaba ha ahaatee hadda Puntland waxa ay u tafaxaydatay sidii meel kasta oo ka keeni karto u keeni lahayd dhaqaalahaas iyo in ay ka shaqeyso sidii ciidankaasi ay u noqon lahaayeen ciidamo si toos ah uga amar qaata madaxtooyada Puntland arintan runtii waa arin kale oo aanan u wanaagsanayn dhinaca dawladda federaalka Soomaaliya waxaana muuqanaysa in Saciid Dani uu si tartiiba markaasi uga guuleystay dawladda federaalka isla markaana uu yara fashiliyay damicii markaasi ku aadanaa in la soo guda galo ama markaasi in la soo fargeliyo maamulka Puntland ee majaraha uu hayo dawladda federaalka Soomaaliya sidaasi hadda kuma aysan quusan sida warbixinadii ugu dambeeyay aanu ku helayno waxaana ay dawladdu rabtaa inay mar kale is abaabusho isla markaasina ay soo jabhadayso si mar kale ay isugu daydo in ay fargelin ku samayso deegaanada Puntland si gaar ah in ciidamo halkaasi laga qoran karo iyo waliba sidoo kale in kale dhinaca kale waxaa weli soconaya qaybo badan oo kamid ah gobolka Mudug qorshayaal kala duwan oo Saciid Dani uu ku doonayo in uu ku xakameeyo ciidamada
la sheegayo in ay weli markaasi si hoose ula shaqaynayaan dowladda federaalka oo cabsida xooggan laga muujinayo oo ay ka mid yihiin ciidamo ku sugan qaybo ka mid ah ee galbeedka ee gobolka mudug oo dowladda federaalka Soomaaliya ay weli si hoose markaasi ula macaamilayso amaba ay markaa ula xiriirayso وهاجاك برنامج كنا غيبي سووه الرأي أيها الله سعتان قياري مركانا هدي أنو أجنو مدحونا سومالي حسن شيخ محمود أيها جواب وحاو كبحية عبسدة آد كفرها بدن ودريما يهو جاميها مملكة بنتلان سعيد عبد الله الدني يدعو مدين كلا صدع في سعيد عبد الله الدني وسوق آد وسوق جليي إن ومركزي جرود دولان مملكي سلوسو هيو وكوهيو مدحونا الجمهورية ده أيها أرنتاسي وحا افتيمي مدحونا حسن شيخ محمود madaxweynaha ayaa mar uu ka hadlayay munaasabad waxa uu sheegay in aysan jirin isla markaasina haba yaraatee aysan wax colaada u qabin maamul gooni ah dad gaar ah iyo qabiil gaar ah toona isla markaasina aysan jirin cadaawad markaasi hadda ay qabaan madaxweynaha ayaa warkiisa waxa uu ahaa mid jawaab u ah buunbuuninta iyo sidoo kale abaabulka Saciidani uu waday maalmihii dambe oo ku saabsanaa in duulaan lagu soo yahay isaga iyo maamulkiisa dadkana arintaasi si weyn uu ugu baraarujinayay Saciid Cabdullaahi Dani laakiin madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa arintaasi biyo qabow ku shabay waxaana uu sheegay in haba yaraatee aysan jirin in markaa dowladda federaalka Soomaaliya ama maamulkiisa hadda talada haya aysan cidna cadaawad ku ahayn oo aysan diyaar u ahayn in ay markaasi dagaalo iyo sidoo kale arrimo noocaasi oo kala dalka galiyaan waxaana ugu baaqay dadka arrimahaasi ku fogan in ay runtii ka feejignaadaan oo ay markaasi ka taxadaraan madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud hadda waxa uu ku sugan yahay Dhuusamareeb waxa hadda soconaya diyaar garowgii ugu dambeeyay oo la doonayo in lagu geeyo magaalada Gaalkacyo halkaasi oo uu kula kulmi doono dadka kala duwan ee ku dhaqan magaalada Gaalkacyo Saciid Cabdullaahi Dani iyo maamulkiisa oo hore uga digay in halkaasi madaxweynuhu uu tago ayaa weli ku adkeysanaya in madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud uusan halkaasi tagi karin sabab la xiriira inay ku eedeynayaan in uu ka shaqeynayo in markaasi qalalaaso iyo xasilooni darro amni halkaasi uu ka abuuro halka dadka degan Gaalkacyo dhinaca Galmudug ay aad ugu doodayaan in madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud aysan jirin cid haba yaraatee u diidi karta in uu tago magaaladaasi Gaalkacyo uuna xaq u leeyahay meesha uu doono inuu markaasi madaxweynuhu tagi karo maadaama uu yahay madaxweynihii dhammaan ee waddanka Soomaaliya hadda waxaa soconaya diyaar garowgaasi aadka u xoogan ee la doonayo in markaa madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud markaasi lagu geeyo qaybo ka mid ah gobolkaasi mudug gaar ahaan magaalada Gaalkacyo sidoo kale madaxweynuhu waxa uu u joogaa Dhuusamareeb arrimo ay ka mid yihiin in uu wax ka xarig jaro mashaariicyo halkaasi laga fuliyay oo ka kooban oo ay ka mid yihiin dhismaha waddo laami ah oo dhex marta magaalada Dhuusamareeb iyo in uu tababar u soo xiro ciidamo aad u fara badan oo lagu qiyaasay ku dhawaad 4,000 oo askari oo tababar qaatay kuwaasi oo ku sugan gobolka Galgaduud gaar ahaan deegaan aanan ka fogeyn magaalada Dhuusamareeb oo lagu magacaabo Xananbuure halkaas oo madaxweynuhu uu tababar markaa ku soo xiri doono waxaana halkaas sidoo kale jooga taliyaha militariga Soomaaliya General Ibrahim Maxamed Axmed kaasi oo isaguna halkaas qayb kala ah madaxweynaha iyo sidoo kale in ciidamadaasi tababarka markaasi loo soo xiro وهاجاك برنامج كنا وركي ودن بيه سوماليا أياد لا سعوتان قياري مركانا سياسيين معارض كأه أيا ولي وحا أي كوجد جيران وررده أي مركز كو قاديان مدحوين حسن شيخ محمود كدي مركي ما أنت شلي إلا يمالمي كهريي أي مقالة مقدشة كجرين دول بربورين لسمينيي أو لو سمينيي حافظة أي كمديهين دقموين كوابري إيو كاران kuwaasi oo dadka laga barakicinayay guriyo muddo dheer ay degnaayeen sabab la xiriira in ay ahaayeen dhul markaasi oo basiiba ah ama markaasi aanan ahayn cabirro markaasi saxan mucaaradka arintaasi waxa ay u yihiin markaa iyagu u diyaarsan mar waliba inay ku weeraraan madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Xasan Sheekh Maxamuud laakiin madaxweynuhu waxa uu sheegay in uu arintani uga golleeyahay in magaalada Muqdisho ay noqoto magaalo qurux badan oo la jaan qaadi karta magaca ay sheeganayso ee ah caasimad dhan oo wadan isla markaasina ay muhiim tahay in laga shaqeeyo sidii loo kordhin lahaa ama markaasi sare loogu qaadi lahaa in dowladda federaalka Soomaaliya meesha ay ku shaqeynaysay ay noqoto meel markaasi caasimad u eg oo aanan ahayn meel markaasi dhibaatooyin kale ay ka jiraan
waa hagaag qaybaha dambe ee barnaamijkeena ayaanu saaxiibayaal isla soo gaarnay ugu dambeyntii maanta waxaa markaasi lagu dhawaaqay natiijada imtixaanka fasalka 12aad ee dugsiga sare ee dowladda federaalka ah ee Soomaaliya iyada oo kaalinta koobaad uu markaasi galay arday lagu magacaabo waa arday markaasi lagu magacaabo Maxamed Ciise Daahir kaasi oo ku guuleystay inuu markaasi galo kaalinta koobaad ee imtixaanaadkii ay qaadaysay dowladda federaalka ah ee Soomaaliya sidoo kale kaalinta labaad gabar ayaa gashay halka 10ka kaalin ee markaasi ugu horeeya ay inta badan ku soo baxeen gabdho taasi oo ka dhigan in waxbarashada ay markaasi hadda gabdhaha kaalin weyn markaa ka qaadanayaan sidoo kale waxa la xasuustaa in waxbarashadii iyo imtixaanaadkii fasalka 8aad ee dugsiga dhexe in markaas inta badan gabdho ay kaalmaha galeen waliba kaalmaha koobaad iyo labaad iyo inta badan kaalmaha ugu horeeya 10ka ah wasiirka waxbarashada oo markaasi ku dhawaaqay natiijada imtixaanaadka ayaa sheegay in ardayda uu markaasi u rajaynayo guul iyo sidoo kale in halkan meel ka wanaagsan ay markaasi gaari doonaan 12 sano xiriira ay dowladda federaalka Soomaaliya hadda markaasi iyadu qaadaysa imtixaanaadka shahaadiga fasalka 8aad iyada oo markaasi guulo muhiim ah ka gaartay walow Somaliland iyo Puntland iyagu aanay markaasi ku jirin laakiin dowlad goboleedyada kale oo dhan markaasi dowladda federaalka Soomaaliya ayaa si markaa siman uga qaada guudaan intaas ayaan jeclahay inaan ku soo gabagabeeyo aqyaaray barnaamijkeeni barnaamijkiisa xiga intaanu dib u kulmi doono waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo